weligaa ma darante idoo dhibaataysan intaad tahay yaa rabbi inuu markiiba ku caawiye markiiba ku caawiye waa qisas badan oo waxaan arkay qof dhib intuu qabtay culays ku dhacay yuu muxuu leeyahay yaa rabbi markiiba uu caawinayaa marka yaa way allah waxaan idiin sheegayaa qiso yar saakaan mar yaan ka sheekeynayay markaan adeer yaasiin iyo aan wada tukanay nin gaal ah oo caddaan ah waa yaa beri ii yimid waa dhalinyaro waa nin school studenti ah oo project iskuulka samaynaya marka diimaha la ka soo sameey marka questioner buu qabaa diimaha ku saabsan marka imaamku ballansaday xafiisku igu yimid su'aalo ii weydiiyay islaamka ku saabsan waxaas markaas waxaan ku yidhi adiga diinteed haysataa kasuu diin ama haysto maxaa dhacay waxaan ka baqayaa haddaan diin qaato inay diimaha kale ila culoobaan marka I want to be friendly to every religion everyone Islam haddaan noqdo Christian ka inaan Christian noqdo Islaamka adoo mar rabo we game ka inaan dhex galo so waxaan rabaa between inaan noqdo markaasaan alla ma aaminsantahay because yes I believe him so how you know him at diin raacsanayn yeah I know the guy up there kulaha waan qana see taqaana see I talk to him how you talk to him because you know other day waxa igu dhacay xanuun baa igu dhacay heart attack baa igu dhacay wadnihii baa wuxuu istaagay hal mar emergency baa la geeyay dhakhaatiirtu dhan baa isugu day kulantay hal waa hadalku wallahi yidhi wuxuu yidhi anoo dhiman raba dhakhaatiirta dhan waxba ay qaban waayeen inta xanuunka iga batay baan qayliyay waan la hadlay buu waxaa hey listen you know me and I know you you kill me now or you leave me kullahi left me we see that subhanallah naxariista alla fiir ni ama idil ama idaa waa isna qana labadeena fiir wixii left me kullaha waa fiicnaa soo fadhiistay nimanka xataa dhakhaatiirta waa yaabeen bi marka kulaha markay xogaa igu adkaata I talk to him and he helped me waa gaal qofka saa hadlay how do you feel adiga muslim haddaa tahay fiir ma dareenta marka qaarkood wallaahi ma jiro adduunka wax aad maskaxdaada ku soo dhaca oo aad alla ka naxariis